sanadihii 1860 ilaa 1897 waxaa jiray tartan gumaysi oo ka dhan ahaa geeska Afrika ambaba dhulka Soomaalidu ay degto. waxaana tartankaasi ku wada jiray Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Itoobiya. shanta gumayste haddaba ma ahayn kuwa iyaga qudhoodu ku heshiiya sida dhulka ay u kala qaybsan lahaayeen. midba midka kale waxa uu doonayay inuu ka dhulbadsado. intaa kadibna Ingiriiska iyo Masaarida ayaa u heshiis dhex maray waxaanay ku fideen xeebihii Soomaalida. sanadkii 1889 qonsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Buonarroti iyo sultaankii Hobyo Cali Yuusuf ayuu heshiis dhex maray. sanadka dhammaadkiisiina shirkad Talyaanigu leeyahay ayaa ka kiraysay xeebaha Banaadir. intaa kadibna Itoobiya ayaa ku soo biirtay oo iyadoo ahayd mid bilowgii ka maqnayd sheekada. markii ay aragtay dhul qaybsiga ka socda dhulkan iyada u dhow ay xaqna u lahayd. boqorkii Itoobiya oo la oran jiray Mililik ayaa waraaq wuxuu u diray wadamadii awoodda weynaa ee waqtigaasi jiray. waxaanu yidhi Itoobiya muddo 14 qarni ayaa waxay ku dhex taalaa jasiirad dad cawaani ay leeyihiin. haddii dalal shisheeye oo meel fog ka yimi ay qaybsanayaan, ilama ahaynan aniguna doqon ahay oo aan ka qadayo qaybinta lagu sameynayo jasiiradan igu dhow ee cawaanka. waxaanan xaq u leeyahay inaan qaybtayda helo. haddaba sanadkii 1896 ayaa waxa dhacay dagaalkii la magac baxay Cadwa, kaasoo u dhexeeyay Talyaaniga iyo Itoobiya. labada dhanbana waxa kaga dhintay dad aad iyo aad u fara badan. ugu dambeyntiina waxa lagu jebiyay oo lagaga adkaaday Talyaaniga. awoodiisina waxay noqotay mid ciirta oo uu tamar dareeyay. haddaba markii Talyaaniga lagaga adkaaday dagaalkii Cadwa, waxa uu u howlgalay sidii uu isugu sii adkayn lahaa xeebihii Soomaalida. ana waxa ka dambeeyay nin mas'uula oo Talyaaniga ayaa Itoobiya heshiis la galay inaan la fogeynin Talyaaniga. Itoobiyana waxay kula heshiisay in uu yareeyo dhulkan uu haysto ee faraha badan leh ee Soomaalida cawaanka. dhulkaas oo uu hore heshiis ugu galay. haddaba gumaystuhu intii uu joogay waxyaabihii uu qabtay waxaa ka mid ahaa hagaajinta dekedaha, goobo waxbarasho iyo dhisitaanka goobo lagu cibaadaysto oo masaajida oo ay dhiseen Masaaridi. hase ahaatee Soomaalidii ku dhaqnayd waqtigaasi geeska Afrika ma yahayn kuwa dareen u leh oo og waxa ka socda meesha. sidoo kalena may lahayn aqoon ay ku kala saaraan waxa wanaagsan iyo waxa xun. waxay hayeen dad iyagu isku jeeda oo isleeya oo utumo hore ku kala aargoosta markasta hubkan ay soo haystaan, iyagoo adeegsan jiray warmo iyo wixii la mid ah. taasoo iyaduna xoojinaysay taanka gumaystuhu joogayo dhulka Soomaalida iyo waliba lahaanshaha xeebaha Soomaaliyeed. haddaba Soomaalidu maadaama ay ahayd dad xoolo dhaqataa oo reer guuraaya, waxay u safri jireen cadan ayay u safri jireen intay xoolo ka haystaan, kadibna waxa lagu soo bedeli jiray cunto. markay dekedaha ka soo degaana waxa laga qaadi jiray cashuurtii dalka. ana looma qaataan ahayd fikir la'aanta aanay ku fikiraynin in dhulkoodii cashuur lagaga qaadayo. sidoo kale isma weydiinin cadaanka dhulkooda jooga waxa uu wado. waxa kale oo fikirkooda uu sii waayay dhulkan yaale. waxaana Soomaalida baraarugeedii gundhig u ahaa Sayid Cabdilla Xasan. waxaana sayidku u dhashay sanadkii 1864 waxaanu ku dhashay ceel biyood laga cabo oo u dhexeeya Woodwood iyo Buuhoodle. waxaana uu barashada Quraanka bilaabay 7 jirkiisii. 20 jir markuu gaadhayna waxa uu noqday nin sheekha. waxaana uu wax ku soo bartay Herar, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. haddaba Sayid Cabdilla Xasan markii uu wadanka ku soo laabtay sidii ay caadadu ahaydba waxa la weydiiyay cashuurtii dalka uu ku soo galay inuu bixiyo. waxaanu ugu jawaabay dhulkan adigu ma lihid, aniga ayaa leh, cashuurtiisa ka laga rabaana waa adiga. kadibna waxay ku tilmaameen nin waalan waanay sii daayeen oo ictiqaaday inuu ninkani yahay nin balaayo soo wada. sababtoo ah wuxuu ahaa ninkii koowaad ee ku yidhaahda hadal ka nixiya gumaystaha. kadib sayidku muu harsan manu fadhiisan ee waxa uu indhayn iyo xog waraysiba ku sameeyay dhulkii Soomaalida sida loo kala leeyahay. kadib markii uu ogaaday xaaladda dhulku sidii ay tahay, waxa uu bilaabay inuu urursado ciidan aad iyo aad u xoog badan, isaga oo hadafkiisa ugu weyn uu ahaa inuu soo celiyo dhulkii Soomaalida ee la biliqaystay. waxaana uu waraaq u diray gumaystihii Ingiriiska ee berbere fadhiyay. waxaana uu dooransiiyey 2 arrimood inay kala doortaan, oo ahaa inay dagaal u diyaar garoobaan amba ganaax ay bixiyaan. maalintaas ayaa sayidka la qoray nin fallaaga. kii 1899 ayaa waxa dhacay dagaalkii ugu horeeyay
halkaana waxaa ku dhintay dad aad iyo aad u fara badan oo labada dhanba kasoo jeeda dhanka gumaystaha iyo dhanka sayidka. 20 sano oo dagaalo oo xidhiidha ayaa dhacay oo uu sayidku la dagaalamayay Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya. intaa kadib sayidku wuxuu heshiis la galay Itoobiya iyo Talyaaniga, waxaanay siiyeen taageero si uu iskaga celiyo Ingiriiskii isagu markaasi joogay. hase ahaatee Ingiriiskii ayaaba soo qaaday dagaal aad iyo aad u xooggan oo ku soo qaaday sayidka iyo ciidamadiisa. 9 sarkaal 189 askari ayaa Ingiriiska kaga dhintay bartaas. sayidkana waxaa soo gaadhay dhaawac xoog leh. haddana waxay noqotay in sayidku uu heshiis la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga, isagoo sayidku yidhi waxaan wataa 4 shuruudood. ta koowaad oo ahayd in dhulka Talyaanigu uu haysto laga siiyo qayb ka mid ah, iyo ta labaad oo ahayd inuu xornimo u helo diinta fidinteeda. lambar 3 inuu xorriyad u helo ganacsiga, iyo lambarka 4 oo ahaa inuu xukumo dadkii la socday Talyaaniga.